عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواذا مالin cusub iyo wanas wada kram maanta waxaan rabaa in aan idin baro wax yar ama technique yar oo aan isticmaalno markaan dadka rabno inaan caawino ama inaan dadka barno wax ay gurigooda ku sameyn karaan ama shaqada ku sameyn karaan because u ogtahay therapyga waxa ma aha like qofka oo therapistiga markasta kulama joogto meel kastana kulama taagna si ay ku caawinto marka waxaan jecelnahay dadka inay bartaan wax si inay ka iscaawini karaan so definitely rajada oo waxa dhan dadka waxay therapy ugu tagaan waxa waaye dhibaatadan ay haasato sidee uu gudbi karaa ama dhibaatadan ay haasato maxaa sameyn karaa si aan naftayda u caawino ma aha ina wax oo weliga wadaysid oo ma ilaa ka dhimatay therapy la qaabilaysid ma aha so waxa aan rabaa maanta idin baro waxaa la dhahaa xoreynta dareenka sidee qofka ay dareenka ku xoreysaa fikradda ka dambeysa waxa waaye jirkeena anaka waxa waaye blood circulation aan dhaco so dhiigga korkeena wuu wareegsanayaa maskaxda in loo gaaro ilaa lagu gaaro haddana wuu soo noqonaa maanta dhan circulationkaas ama wareegaasayto energy ajiidooyo aqaadooyo so qofka markay dhibaatooyin badan la kulanto waxaa cuslaanayo enerjigii oo wareeji lahay dhiigga so xoreynta oo dareenka markaa suubinayno waxaa rabnaa inaa activate garaysiina energygaasayta inaan dhaqaajino si oo circulationka u socdo anta circulation marka u socdo qofka way caafimaadkiisa uu wanaagsanaanaya so waxaa sameyn kartaa ay waqti gurigaaga adoo joogtid shaqada adoo joogtid iskoolka ay waqti aad dareentid ina stresskaaga oo kacoyo ama anxietygaaga walwalkaaga oo badanayo haddaad dareentid inaad focus garya laadahay oo maskaxdaada yani aad u shaqeynayso waxaa sameyn kartaa hadduu madax ku xanuunayo camal aad dareentid madax inuu ka xanuunayo migraine-ka dad badan oo migraine qabaan u sameyne oo maskaxdooda madax xanuunka oo ka joogsaday so it's a west waxa waaye of course anaka dad muslim aan nahay so midda koowaad always waxa waaye inay qofka ilaahay xasuusato tasbiixsato duceysato so waxaas dhan of course inay ka bilaawdid waaye because dad muslim aan nahay and always qof muslim aan haddaan la dhaqmaayo inaan waxa waaye koodi weydiiyo horta ma dukataa salaadaada ma dukataa ilaahay ma xasuusataa istighfaarka ma badsatee so waxyaabahaasaan koodi ka bilaabayna because waxa ugu horeeya waxa waaye ilaahay inaa lagu tiirsado qur-aanka la aqristo because qur-aanka shafa iyo hanuuna loo soo dejiye kadib markaa ilaahay wuxuu dhahay calama alnaas maa lam yaclam so of course ilaahay cilmiyuuna siiye cilmigeenana also inaa ka faa'iidaysano waaye and inaa isdaaweyno waa waajib so gooda dhinaca diinta sameey and then ilaahay wuxuu kugu toosiyo kale inaan suubino is very important anyway so maanta qadbayaalkaan ku baraayo waxa waaye qofka horta waxa waaye open minded inay ahaato maskaxdaada inaa kala furtid horta u gashahay wax cusub inaa baroobaysid because wax cusub waaye oo adee wax cusub kugu tahay laakiin waxaan wax jiray waaye weligiisa research badan laga sameeyey oo cilmiyaalka sayniska ay aaminsan yihiin laakiin ada maskaxdaada inaa furtid waaye because haddaa maskaxdaada xiran tahay oo isla markii aad dhehaysid shaqadii gaalada ay wadaa iyo waxaan wax ma ka jiro iyo wax meel ma la gaarayo ma kuu shaqeynayo of course laakiin haddii maskaxdaada furtid oo dhahdid maxaa khasaara baroobeeyo maybe inuu ku shaqeeyo it's really important markii baroobaysid though I want you inaa iisoo sheegtid waxa makuu shaqeeyay maxaa ka aragtay maxaa iska dareentay waaye inaa ila soo socodsiisid waaye so of course hoos ay igugu soo qori kartaa so mid ugu horeysa waxa waaye waxaa rabaa inaa fariiso ee waxaa ku fikirtaa wax uu ka xanaajiyo maybe dhibaato welwel wax oo adi iyo qof idin dhexmar oo ka xanaajiyo okay so marka dareen indhahaaga isku qabo fiiri maxaa dareensan tahay then xanaaqaaseeto heer oo intuu gaarsiisan yahay so waxaan dhahnaa intensitygeeda maybe 1 ilaa 10 haddaan dhahno 10 ay tahay aadi aada u xanaaqsan tahay like dhiigaaga ka cirabo iyo 1 ay tahay maba xanaaqsanteed caadi aa tahay ilaa intay gaarsiisan tahay so maybe 5 inaad tahay maybe 6 inaad tahay just fiiri kadib waxaa
indhahaaga hadda isku xiri kartid because anaa fiirsan aan inay aragtid waa meelaha aan taabanayo laakiin markaan dhameeyo videoga dan indhahaaga isku xiri kartaa waa samayn kartaa ba markaa ogaatid xanaaqa wuxuu yahay iyo wax kaa xanaajinooyo iyo xanaaqayga halkuu gaarsiisan yahay then meelahan taabanaa adi laakiin xanaaqa ku focus garaynaysaa iyo wax kaa xanaajinaya laakiin waxaa kaloo suubinaysaa wax uu affirmation la dhaho so inkastoo dhibaatadan ay jirto alxamdulilah raaliya ku ahay camalaa dhehaysaa so waxaas affirmation waa inaa raali ka tahay inaa naftaada jeceshahay oo raali ka tahay so intaa ka bilaabeynaa labada goor meesha u dhexayso andansaana dhehaysaa inkastoo aan xanaaqsanahay naftayda raaliyaan ku ahay haddana goonka dhammaadkiisa imaanaysa inkastoo oo dhibaatadan ay jirto naftayda raaliyaan ku ahay inkastoo dhibaatadan ay jirto naftayda raaliyaan ka ahay inkastoo ay dhibaatadan ay jirto naftayda raaliyaan ka ahay markasta waxaa suubinay 3 ilaa 4 jeer so inkastoo ay dhibaatadan ay jirto naftayda raaliyaan ka ahay inkastoo ay dhibaatadan jirto naftayda raaliyaan ka ahay haddana sankaaga hoostiisa inkastoo ay dhibaatadan jirto naftayda raaliyaan ka ahay and you don't have to codkaaga inuu dheeraado hoos gudaha ka dhihi kartaa 3-4 jeer camalaa suubinaysaa sidoo kale inta faruurta hoosteeda inkastoo dhibaatadan ay jirto naftayda raaliyaan ka ahay ku celcelinaysaa 3 jeer 4 jeer and then inta wadnahaaga agtiisa wadnaha maaha like lafahan oo collarbone-ka ee dhahaan hoostooda hal xabaa qabsanaysaa qasab midig ama bidix ay gacnay noqon kartaa qasab ma aha so inkastoo ay dhibaatadan jirto naftayda raaliyaan ka ahay so 3-4 jeer suubinaya and then lafta hoose geeskaaniita lafta ku jirto sidoo kaleeto inkastoo ay dhibaatadan jirto naftayda raaliyaan ka ahay 3 jeer 4 jeer suubinaysaa okay and then gacantaada haddaa fiirisid inta crowding pointing meesha ay dhahaan inkastoo ay dhibaatadan i haysato naftayda raaliyaan ka ahay inkastoo ay wax dhibkan uu ihaayo alxamdulilah naftayda raaliyaan ka ahay aa dhehaysaa okay and then deep breath aa qaadanaysaa neefso mar kale ku celi haddana alxamdulilah bas so energy point yagaan garaacna hadeertaan waa dhaqaajino dhiigeena fiiri marka maxaa dareensan tahay dareenkii oo xanaaqi weliba dareemaysaa halkuu gaarsiisan yahay soo haddee ahayd 6-7 hadda meeqay noqote aan haddaa aragtid inuu 2 ka koreeyo dan waa ku celinaysaa khatawaadkii wax 5 daqiiq kaa qaadanaysa waaye haddaa iskoolka joogtid ama shaqada aad joogtid oo waxaas dhan maybe ma samayn karaysid laakiin meeshaa niitaa qabane andan saasaa dhehaysaa inkastoo dhibaatadan i haasata nafteeda raaliyaa ka ahay hadna 3-4 jeeraa garaacaysaa the same faa'iidadii suubinaysaa insha allah waxaan rabaa inaa wada baroobaysiin and then qofkii oo geesi ah ha iisoo qorto waxay kala kulantay and insha allah waxaan isku dayaa video had kasoo socdaan inaan suubiyo waxyaabo yaryar oo qof kasta ay gurigeeda ku samayn karto iyadoo therapy aadin again ma aha qof waxyaabaha qaarkood yaa maybe inay ku caawinaa saacada waxyar laakiin qof kasta culayska gudaha kaga jiro waxa aad iyo aad important u tahay inaad qof raadsasid oo kala hadashid because gudaha wax ku jiro still culayskaas wuu kugu jiraa maalin kastana wuu kugu soo kicinaa waxa oo hadda ku haasto so isku day in aad kala hadashid qof hadda awoodid waa intaas iyo waa Naswada Ikram. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.